السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر هذا إليس يوتيوب channel أما إليس channel. waxaan uga hadlaynaa maanta uguna talagalnay dadka Soomaaliyeed inaan u sheegno qaybta loo yaqaano labada qaybood. Waxaan rajaynaynaa inaad Windows 10 aad isticmaalaysid saddexda qaybood oo muhiimka ah ee loo isticmaali karo oo ah GUI graphic user interface, Windows command prompt iyo PowerShell ma u geli karno sababtoo ah waa arrin aan ka baxsan scope-ka ama hayshan arrintan ah. Waxaan ka hadlaynaa waxa ay tahay waa haddii la yiraahdo graphic user interface. Maxaa la yiraahdaa graphic user interface? Graphic user interface wax kale lama yiraahdo, waxa ku dhisan tahay Microsoft operating system-ka computer-ka qaybihiisa adag, hard disk-ka iyo dhammaan inta kale isla shaqeyso ay mataqaanaa loogu talagalay ama ka dhigtay Microsoft Windows-ka oo Bill Gates iska leeyahay mid adduunka ugu caansan uguna badan saamiga ugu badan ee adduunka uu ku leeyahay waa operating system-ka. Inkastoo erebixinta rasmiga ah ee operating system-ka af Soomaali ku sheegi karin, haddii ay jirto cid arrintaas hadalka ay mataqaanaa xaraf ku habboon yaqaano ha noo geliyo qaybta description-ka ama comments-ka. Marka aan usoo galno casharkeeni GUI ama oo loo soo gaabiyo GUI ama GUI oo loo soo gaabiyo graphic user interface waa qaabka aad u isticmaalaysa Windows-kan aad u jeedaan oo ku salaysan waxa la yiraahdo ku base garaysan what you see is what you get. Tusaale haddii aad start rixdid, that is what you click is what you see. Qaybaha computer-ka iyo noocyadiisa kala gedisan marka wuxuu ku dhisan yahay waa click. Dadkana way u fududahay inay raacaan, waana midda ay dad badan ay ugu fududahay inay isticmaalaan psychologically. Laakiin marka la fiiriyo Windows command line ama Windows command prompt waxa loo tagayaa waa step 2 waa step kaleeto, laakiin waa la isticmaali karaa Windows command prompt-ga saddex qaybood ayaa loo sameyn karaa. waa midda koowaad waxaad tagaysaa start, waxaad ku dhufanaysaa cmd xarafka la yiraahdo. marka ku dhufato enter ayaa leedahay. marka tiraahdo waxa ku soo baxay shaashadan madow oo aad u jeedaan ayaa ku soo baxayso ayaa la yiraahdaa Windows command line ama command prompt. taasoo waa mid qaabkan waa lagu tagi karaa. waxa kaloo aad ku tagi kartaa adiga oo keyboard-ka oo Windows-ka iyo xarafka ra ku dhufato waxa ku soo boodaysa shaashadan yarista, waxaad ku qoraysaa cmd again, enter ayaa leedahay. waxa ku soo baxayso sida u jeedaan command prompt. midda saddexaad ee aad ku tagi kartay iyadana waxa ay tahay in aad tagto start ku dhufato oo PC-gaaga aad tagto. PC-gaaga marka tagto aad shaashada weynaysato oo aad tagto local disk ama hard disk-kaaga ama halka computer-kaaga uu keedka ku samaysto. waxaad tagaysaa file-ka ama folder-ka ama galka Soomaaliga rasmiga waka. waxaad sii tagaysaa system32 wax la yiraahdo. waa kana system32 yaa sii riixaysaa. waxaad ka raadinaysaa marka cmd.exe ama executable. hoos ayuu jiraa, you scroll down, hoos ayaa usii soconaysaa. marka u socoto waxaad arki doontaa icon yar ama shaashad yar oo madow ayaad arki doontaa oo hoos ka soo bixi doonto sida aad hadda halkan uga jeedid. waatana waan helnay. halkaas unba double click ku sameynaysaa, laba mar ayaad riixaysaa. waxaad tagaysaa sidaan waxaad ku tagi kartaa Windows command prompt ama Windows command line. waxyaabo badan ayaa halkan lagu ogaan karaa. waxaa kamid ah waxaad dhihi kartaa ii sheeg date-ka maanta uu ku sheegayo waka waa u jeedaan. aan ka baxno marka mar labaad aan ku noqono start ku qor cmd waa command enter leh. waxaad kaloo awood u leedahay in aad tiraahdo time-ka ii sheeg waa ku sheegayo waka waqtiga hadda meesha aan joogo. waan ka baxaynaa. waxaa kaloo aad awood u leedahay in aad u isticmaasho sidaan uga bixi karnaa marka halkan iyada ah. waxaan uga bixi kartaa marka uu ku soo boodo mar labaad aan riixo halkan uu ku soo boodo. laba arrimood waa uga bixi kartaa marka halkan imaanto. haddaadan garanayna waxyaabaha isaga ciyaarin waxaad ku qori kartaa xarafka exit oo ka bixitaan ah, ama halkan ayaad ku dhufan kartaa si aad u jeedid halkaas ayaad ku dhufan kartaa enter ayaa leedahay, waad ka baxday. marka qaybtan waxa waaye waa qaybtii loogu talagalay GUI-ga, waa qaybta aad aragto oo graphical-ka ah. marka graphical-ka marka wuxuu leeyahay graphic user interface-ka waxa waaye graphic user interface-ka oo qofka uu isticmaalo si uu markaa computer-ka interactive ugu sameeyo
ama qalabkaas marka Windows command prompt line kan waxa uu leeyahay waa command line waa idan ama mataqaana loo isticmaalo si Windows-ka commandiyo ama executable loo isticmaalo marka waxa jirto oo kaleeto iyadana aanan qaybtan kamid ahayn oo muhiimna ah wax la yiraahdo Windows PowerShell-ka waxa aad u isticmaalo PowerShell inkastoo hadda aysan ahayn qayb aan shaqo ku leenahay haddana waxa muhiim ah in aad ogaatiin waa muhiim oo PowerShell-ka waxa isticmaalo wakaas oo ma xarafkiina ilooba raali laga ahaado si qalad aan u qoray PowerShell marka PowerShell ku qabtid hadda xasuusatid screen ka hore wuxuu ahaa madow kan waa blue saa u jeedaan wakaas isagana waxa waaye Windows sida u jeedaan PowerShell iyadana qayb kale ayaan uga hadli doonaa dadka administratorada ah ee waaweyn ayaa isticmaala halkan in ay ka fuliyaan howlo badan ama networking-ka marka taasu waxa ay tahay qaybaha Windows-ka la isticmaalo oo ay kamid ahaayeen GUI oo graphic user interface-ka Windows command prompt line iyo PowerShell-ka dib dambe ugu soo noqon doonaa taasu waa mid sophisticated exit ayaan u isticmaalaynaa sidii hore waan idinku sheegnay waan ka baxnay marka akhiir baan idin rajaynaynaa waan arin muhiim ah qofka xiiseynaya in uu mihnad ka dhigto ama professionally aad dhinaca IT-ga ama information and telecommunication-ka ama communication technology-ga oo internet-ka halka hadda adduunka oo dhan howlaha lagu kala fushanayo in uu wax ka ogaado qaabka loo isticmaalo waa laga maarmaan waxaan rajaynaynaa in cashirkan aad ka faa'iideysateen haddii aad nagu cusub tahay hanaga hilmaamin subscribe-ka iyo like-it-ka hanaga hilmaamin arrintaasna la soco haddii aad og tahay dad aas leedahay way ka faa'iideysan karaan nagu soo xir u sheeg العلم بين التلاميذ ayaa la yiraahdaa sharing is caring Ingiriiska ayaa yiraahdo saas daraadeed waa ku maadsantiin inaan soo boqotaan iyadoo Ingiriisna waa gelini kana waa dadka Soomaaliyeed inaan ku kobcino luqadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inay ka faa'iideysan karaan IT-ga waa meesha ugu fudud salaanta aqoonta laga kori karo si fudud lagu sameyn karo iyadana waan ka hadli doonaa nala soco khayr baan idin rajaynaynaa wabillahi tawfiiq